afar shay oo haddii aad samaysid aad luqad ku baran kartid ama luqadda aad taqaanid aad ku kobcin kartid. shayga koobaad al-istimaac, dhegaysi. You have to listen something every single day. waa inaad wax dhegaysataa. markaad wax dhegaysanayso ha noqdo idaacad aad dhegaysanaysid oo ku qoran luqadda aad doonaysid inaad kobcisid. aynu idhaahno Englishka doonaysaa inaad baratid. dhegayso lecture markaasi ku baxaya Englishka amaba ku baxaya Carabi. Number 2, isku day inaad wax akhridid. akhri mar kasta iyo meel kasta. akhri book ku qoran markaasi luqadda aad doonaysid inaad kobcisid amaba isku day inaad akhridid boostiyada meelaha social media la soo dhigo. kobci oo akhri mar kasta oo wax ka soo horbaxaan. 3, isku day inaad markaasi wax qortid. aynu idhaahno maalin kasta waxaad barataa hal kelmad oo cusub, 3 kelmadood oo cusub. isku day 3 kelmadood inaad markaasi qortid. shayga ugu dambeeya, ku hadal. luqadii waa inaad ku hadashaa. haddaba seen ugu hadlaa cidba ma haystee. applicationadan aan hoosta kugu soo qoray waxa weeyaan qaar markaasi kugu caawinaya in aad heshid dad markaasi ku hadlaya luqadan aad doonaysid inaad baratid amaba aad kobcisid. haddaba intaa iyo in ka badanba waxaad ka helaysaa kulliyadda barashada luqadaha ee Kalam College. ku xidhnow mar kasta iyo meel kasta. waa Bilaal Mustafa oo idin leh see you soon. araakum laaxiqan itqabiyantu. waa inoo mar kale.